asalaamu calaykum kusoo dhowow daawada qaybtii xigta ee macluumaadka ku saabsan cali xasan salaame iyo doorkii uu ku lahaa howlgalkii sebteembartii madoobeed. qaybtanna waxaan ku ogaan doonaa macluumaad kale oo ku saabsan cali xasan salaame iyo doorkii uu ku lahaa wadahadalada Mareykanka iyo PLO. waa warbixin ama documentary laga sii daayay telefishinka Aljazeera qaybtiisa Ingiriisiga waxaana tarjumay saaxiibka Bilashadana Axmed. qaybtii hore aan xasuusano halkii ay noo joogtay. dadku way jeclaayeen, wuxuu ahaa qof muuqaal wanaagsan leh, dadkii ay isla macaamili jireen aad ayay u jeclaayeen, isla markaana wuxuu ahaa qof aad u adag arrimaha qaarkood marka laga hadlayo ee howlaha ah. ammaankana mararka qaarkii waa loo baahan yahay in la adkeeyo. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa sidan. cali xasan salaame wuxuu ahaa ruux aragti wanaagsan, waxaana uu ahaa ruux ay jeclaayeen dadka isla markaana ay daneynayeen inay heshiisi iyo la macaamil naftiisa ay la yeeshaan. wuxuu jeclaa jimicsiga iyo ogaanshiyaha xogaha qarsoon. bishii Juun ee sanadkaasi waxay jabhadda xoreynta Falastiiniyiinta ay u guureen magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, halkaas oo xarun u ahayd Yaasir Carafaad. meeshaasi waxay ahayd wadanka kaliya oo ay ku qabsan kareen howlahoodii u gaarka ahaa. yaasir carafaad xilligaasi wuxuu helay taageerada xisbiga dhaqdhaqaaqa qaranka ee dalka Lubnaan uu hogaaminayo nin lagu magacaabo Kamaal Jumlaad. laakiin carafaad waxa uu doonayay xiriir siyaasadeed isaga uu la sameeyay xisbiga, isagoo isku dayay in uu xiriir u dhex marsiiyo kooxdii Kirishtanka ee Katiya ee ku xooganeed bariga magaalada Beirut ee dalkaasi Lubnaan iyo kooxihii kale ee ka dhisnaa gudaha dalkaasi. qof kasta waxa uu xasuusan yahay wixii dhacay sanadkii 1973 intii lagu guda jiray aaskii uu ka soo qayb galay Beria Gamayel oo ahaa xubin firfircoon oo xisbiyadii ka dhisnaa dalkaasi Lubnaan ka tirsanaa. waxa uu galay gaarigii Karen Bakruddin, waxa uu u sheegay inuu rabo inuu u dalxiiso degmada Ajrafiih. waa cali xasan salaame wuxuu ii sheegay inuu doonayo inuu u dalxiiso degmadaasi. waxaan ku dhahay aan booqanno Bayri Kamayel. waxa uu igu yiri maya, waxaan rabaa inaan arko magaalada Ajrafiih. carafaad waxa uu fariistay fadhigeygii ama kursigeygii yaraa, isaga oo xiran koofiyadiisii lagu yaqaanay. sidaasi waxaa yiri saaxiibka cali xasan salaame. waxaa sidoo kale hadalkiisii uu ku daray, waxa uu furay daaqadda, waxa uu bilaabay inuu salaamo dadka. qaar way istaajinayeen si uu ugu celsho salaanta, halka kuwa kalena ay la yaabanaayeen. waxa uu tusinayay in uusan tartan kula jirin cid kasta, waxaana uu rabay in uu dhammaantood ay la saftaan, sida Kamaal Jumlaad kaasoo hogaaminaya dhaqdhaqaaqa wadaniga ee Lubnaan, kuwaas oo doonaya inay bedelaan kale taliskii. carafaad dan kama uusan lahayn bedelidda rejiimka ama kale taliska. waxa uu rabay kaliya inuu taageero iyo in uu sii joogo koonfurta dalka Lubnaan, maadaama ay tahay saldhigga militariga, siyaasadda iyo midda warbaahin si ay u isticmaalaan oo uu kula hadla caalamka. sidaas ayuu mar kale yiri saaxiibka cali xasan salaame. laakiin wax kasta uu doonaya yaasir carafaad waxa ay isu bedeleen dagaal ahli ah. kooxda PLO iyo kooxdii Kirishtanka ayaa ku dagaalamay wadooyinka magaalada Beirut, iyagoo magaalada u kala qaybiya bariga iyo galbeedka. maleeshiyada iyo kooxaha ammaanka ayaa isku dhacay, boqolaal rayid ah ayaa lagu dilay, ciidankii dowladda waa ay baxsadeen, qaybo badan oo shaqooyinka dowladda ahna waxaa la wareegay kooxaha. si kastaba ahaatee dagaalkaasi waxaa door uu siiyey cali xasan salaame oo doonayay inuu ku hanto taageerada PLO ee ku sugnaa gudaha iyo dibadda dalka Lubnaan, oo ugu dambeyntiina waxa uu doonayay in wadahadal ula galo Mareykanka. waxa uu bilaabay inuu la xiriiro Bashiir Gamayel, waxaana uu yaasir carafaad u wakiishay shaqada la xiriirta inuu la kulmo Kamaal Jumlaad oo hogaaminaya kooxaha kale ee dagaalka kula jira PLO. xilligaasi waxaa la doonaya saddexda xisbi oo kala ah PLO, dhaqdhaqaaqa qaranka Lubnaan iyo xisbiga Kirishtanka oo hogaaminaya Gamayel in heshiis ay ku midaysan yihiin ay ku gaaraan gudaha dalkaasi, gaar ahaana in heshiis laga gaaro sidii dagaalka loo joojin lahaa. waxaa sidoo kale ay doonayeen inay ku heshiyaan ama ay u midoobaan in ciidamada dowladda Syria aysan faragelin aysan ku sameynin gudaha dalka Lubnaan. waxaana ugu dambeyntii kulan ay yeesheen ay heshiis ay ku gaareen in gabi ahaanba ay ka hortagaan oo ay ka midaysan yihiin in ciidamada Syriyaanka ah ay gudaha u galaan dalka Lubnaan iyaga oo faragelin ku sameynaya. waxaana xilligaasi heshiiska lagu gaaray guriga wasiirkii difaaca ee Lubnaan Muxsin Daluul. wasiirkii difaaca ee dalka Lubnaan sanadihii 1992 ilaa 98 Muxsin Daluul dhankiisa isaga oo ka hadlayay kulankaasi waxa uu yiri,
kamaal jumlaad iyo bashiir gamaayel waxay ku kulmeen gurigeyga iyadoo uusan cali xasan salaama la socon. bashiir gamaayel muusan tegi karaynin galbeedka bayruud intii uu socday dagaalka. waxaa laga soo kaxeeyey agagaarka madxafka. ugu dambayntiina shirka guud waxaa ku soo biiray cali xasan salaama waxaana uu ka dhacay gurigeyga. waxa uu isku diray xisbiga bulshada garabka fog waxaana uu noqday qof caan ah kadib ka qaybgalkii xaflad uu martigeliyey Dani Jamoun. waxa uu la kulmay bashiir gamaayel marka laga reebo cadowtinimada labada dhinacna kulan caadi ah ayay yeesheen. aad ayay isaga u jeclaayeen. Dani Jamoun waxa uu u tixgelin jiray sida wiilkiisa saddexaad. sidaasina waxaa warbaahinta u sheegtay cali xasan salaama walaashii. bartamihii dagaalkii ahliga ahaa cali xasan salaama waxa uu la kulmay bashiir gamaayel si ay kaga wada hadlaan arrimaha ammaanka. intii lagu guda jiray wadahadalka dhanka ammaanka bashiir gamaayel ayaa u sheegay salaama in dalkiisa uu ahaa mid aad u qurux badan, laakiin salaama wax hadal ah kama uusan dhiibin arrintaasi. waxaana uu carafaad oo u sheegay in bashiir gamaayel uu xiriir ula leeyahay Israa'iil. cali xasan salaama waxa uu ku dhex milmay meelaha ciyaaraha ee Israa'iil ee bariga Bayruud taasoo ahayd xisbiga Kataib. ma aysan jirin qof tegi karaya agagaarka goobaha ciyaaraha ee Israa'iil, laakiin cali xasan salaama waa uu ku dhex milnaa meelahaasi. waxa uu garanaya askarta Israa'iil oo ka shaqaynaysa bariga Bayruud. tawfiiq al-Tiraawi oo xubin ka ahaa guddiga dhexe ee xisbiga Fatax ayaa sheegay in xilligaasi cali xasan salaama uu ka faa'iidaystay xiriirkiisii uu la lahaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga Kataib si uu u furo kanaalka wadahadalka ee Maraykanka. intii xisbiga ka wada tirsanaa waa PLO waxay aragtidooda ay ahayd in xoogga ay saaraan dhanka ammaanka halkii ay ka hadli lahaayeen siyaasadda. ka hadlidda siyaasadda waxay dhexdooda ay ka ahayd mamnuuc, balse ammaanka ayaa si caadi ah ay kaga wada hadli karayeen. waxaa ra'yi ahaan lagu soo jeediyey in lala macaamilo safiirka Maraykanka u joogay Lubnaan. safaaraddu waxay ku teelay galbeedka Bayruud taas oo ay maamuli jireen Falastiiniyiinta. sidaas daraaddeedna waxaa la isku raacay in lala hadlo. waxaa loo sheegay in carafaad uu wadahadalka u wakiishay cali xasan salaama. waxaa kaloo la dejiyey in la adkeeyo ammaanka safaaradda si loo difaaco weerar kasta oo ku imaan karaya Ameerikaanka. waxaana maankooda ku jirta in xalka dowladda Falastiiniyiinta uusan imaan karaynin ilaa Maraykanka uu ansixiyo mooye. taasina waxay ahayd bilowga wadahadalka salaama iyo hoggaanka hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA oo xirintooda ahayd magaalada Bayruud oo lagu magacaabayo Robert Imes. Robert Imes waxa uu madax u ahaa xarunta CIA-da ee magaalada Bayruud. Imes waxa uu fahmi karayay luqadda Carabiga waxaana uu yaqaanay gobolka. waxay ahayd mid suurtagal ka dhigaysay xiriirkiisii salaama in uu saameyn doono xiriirka qotada dheer ee u dhexeeyey dalalka Carabta, Israa'iil iyo Maraykanka. madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Ronald Reagan waxa uu sheegay in xilligaasi ay kalsooni badan ay ku qabeen in wadada ay ku socdaan ay tahay midii saxda ahayd taasoo ku aadan dhanka wadahadalka, isaga oo sheegay inay doonayeen inay nabadgelyo, barwaaqo iyo walaaltinimo ay la doonayaan dadkaasi. qorshihii madaxweyne Reagan ee sanadkii 1980 waxaa la sheegaa inuu ahaa markii ugu horeysay Maraykanka uu aqoonsaday in heshiiskaasi aan la saxiixi lahayn iyada oo aysan saameyn ku lahayn Robert Imes, wakiilkii CIA-da ee Bayruud, iyo cali xasan salaama. markii Israa'iil ay ogaatay in wadahadalkan uu socdana waxa ay go'aansatay inay si adag ay u joojiso wax walba oo socday. waan xasuustaa markii walaalkii la shirqoolayay waxay ahayd 22 January dhalashadii gabadhayda. waxa uu qorsheynayay inuu inoo yimaado. wuxuu doonayay inaan u dabaaldegno iyada, annaga iyo qoyskeennaba oo filim aan ka duubno maadaama saygayga uu soo iibiyay kaamirada wax lagu duubo. waan sugaynay isaga balse ma aysan dhicin. sidaasi waxaa tiri cali xasan salaama walaashii. haddaba sidee loo shirqoolay, loo dilay, loona fuliyey dilkii cali xasan salaama? waxaan ku soo gudbin doonaa qaybteena xigta insha Allah. aad baan kaaga mahadcelinaya la socoshada qaybaha kala duwan ee arrimaha sirdoonka aan ku soo gudbiyo barteeda YouTube-ka iyo qaybaha kale aan maalmahan ku soo kordhin.